isimada qaar halkaydoo jooga iyo qaar inagula soo xidhiiray telefoon uqaasha waayeel waxgarad maamulka iyo xogolaha wasiirada mudane iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah maanta inaan idinku hambalyeeyo guusha inoo soo hoyatay ee ah in laynoo aqoonsado ama loo aqoonsado Khaatume State of Somalia inay gaadhay halkii ay mudnayd ee ahayd inay ka mid tahay maamulada sharciga ah ee ay ka kooban tahay Soomaaliya guul keligeena maaha waa guul ay leeyihiin dhammaan inta jecel midnimada iyo sharafta iyo magaca Soomaaliya waa guul iyo fikir loo soo galay in la gaadho halkaa waana tallaabadii koowaad ee maamul kastaa u baahnaa waxa ka dambeeya geedi socod dheer oo u baahan inooga baahan dadaalkii aynu gallay iyo mid ka fooqday intaa wixii ka dambeeya waa wax fudud oo ilaahay inoo fududaynayo waxaan kaloo halkan sharafii ah inaan uga mahadnaqo deegaanka iyo dadweynaha reer Taleex sidii ay ugu dhabaradayneen doonitaanka aynu doonaynay inuu inoo rumoobo maanta dadaal fiican bay u galeen way u dhabaradaygeen way u dulqaateen waana lala garab galay marka iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan kale oo iyana mahadnaq mudan maamulada hawshaa iyada gartay ee inagu gacan qabtay ee ay ugu horeeyaan maamulka Galmudug iyo madaxweynahooda waxa kale oo iyana mahadnaq mudan shacabka Soomaaliyeed ee dararan shabeellooyinka jubbooyinka banaadir iyo beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa waxa ay sameeyeen waxaan la ilaawi karin Soomaalinimada iyo midnimada iyo xasiloonidana aad iyo aad ugu weyn markaan intaa dhaafo maamulka aanu dariska nahay Somaliland muddo dheer bay waxay ku celcelinayaan hadallo aan iyaga iyo annaka toona anficin hadallada aan xiisaha lahayn ee isdaba jooga ee caaga gefka intooda badan ah waxaan ilaahay idinka baryaynaa marun idin dhaafiyo oo runta idin garansiiyo aynu kala mudannahay koob iyo 10 sannadood baad gogol leedihiin cidina idinka dhigaysan inaad maamul oo aanu nahay maamul jira oo idinla mida oo Soomaali oo dhan ay taageertay inaad maanta gogol tirahdaan waa qiimo la'aan Somaliland ka tirsanay isimada sheeganaya ee wada hadal iyo sheeko aanan u jeedin meel daba jooga haddaad tihiin kuwa u miyir qaba maamulkiina qaruurihiina ku idlaanaya guryaha iyaga baa xil idinka saaran yahay xil lagama kii saara waxaanu idinka baahanahay lama jirto baahanahay keliya waxa weeye waxaanu annagu qabsanno annagu keliya iyo qabsanno iyo maamulka iyaga iyo dawladda iyaga iyo deegaanka iyaga ha ku celcelinina
tabasho waxalaala iyo waxaanu idinka tabanaynaa ma jirto aan kala nabad galo hadalkeenu iyo istabajoogkeenu waa inuu ku soo afkaa deris wanaag iyo haddii ilaahay idin tuso midnimo Soomaaliyeed haddii ilaahay idin tusi waayo wixii aad raalli ka tihiin baanu raalli idinkana waxaan kaloo u sheegayaa dadweynaha xafladda ka soo qayb galay in maalin dhaweed shil uu ka dhacay magaaladan ay degan tahay magaalo madaxda ee Taleex shilkaa dhacay ee ahaa in lagu dilay nin ilaahay sabir iyo iimaan baa ka siiyo ugu horreyn dadkii uu ka dhintay talabaad maamulku waxa ay ku dadaaleen isla markiiba inay soo qabtaan gacan ku dhiigdii ama uu dambigii uu galay la baxsan intaa wixii ka dambeeyey waxay ahayd inaanu la xaalay aniga iyo jaamac garaad Ismaaciil reerkii uu ninkii ka dhashay gacan ku dhiigda waanu wada hadalay waanu isafgaranay si aan walaac lahayn bay noogu soo wareejiyeen gacan ku dhiigda annaguna waxaanu u wareejinaynaa maamulka khaatumo maadaama aynu nahay maamul wixii go'aana iyagaa leh annaguna odayaal baanu u ahayn xilkiina loo gartayna waa sidii ay u garteen dadku baanu annana ula garanay hawshu intaasay ku soo afkooday magaaladuna caadigeedii ayay ku soo noqotay waa wax ilaaha weyn lagu mahadiyo ciddii ilaale iyo ciddii gacan ka geysatayna loogu mahadnaqo hadda iyo wixii ka dambeeyana dadaal weyn iyo xil weyn bayna saaraysaa hadalkaygii waxaan ku soo koobay waxaa inoo ballana guul iyo shaqo iyo midnimo iyo nabadgelyo iyo wax allaale iyo wixii horumar u baahan yahay aynuu guntay asalaamu calaykum waraxmatullahi